ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer amni xalay ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waqtina uu la qaato qaar ka mid ah shacabka si uu ogaado baahida amni iyo nololeed ee ay ku jiraan bulshadiisa. goobaha ay isugu yimaadaan bulshada Muqdisho ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kula kulmay boqolaal shacab kuwa oo weydiinaya talooyinka iyo tabashooyinka ay u hayaan dawladda ay doonayaan in wax laga qabto isagoo si caadi ah uga jawaabayay su'aalahooda una ballan qaadayay in wax laga qabanayo talooyinka ay soo jeediyeen laguna shaqayn doono. ra'iisul wasaare Khayre oo kormeerkiisii xalay ku guda jira ayaa iska suuqa weyn ee Bakaaraha kula kulmay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo xilligaas ugu jiray howlgal ay ku xaqiijinayaan amniga caasimadda waxaana ku bogaadiyay kulana dardaarmay inay laabaan waajibaadkooda ku aadan ilaalinta nafta iyo maalka muwaadinka. saraakiisha hogaaminaya ciidankaasi oo ka howlgala suuqa weyn ee Bakaaraha taa qayb ka ah qorshaha lagu adkeynayo amniga suuqaasi ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda u sheegay inay diyaar u yihiin inay si wanaagsan ugu shaqeeyaan bulshada isla markaana wada shaqeyn wacan ay ka dhaxayso iyaga iyo shacabka u adeegayaan iyagoo fulinaya awaamiirta madaxda qaranka ee ku aadan ilaalinta bulshada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhammaan degmooyinkii uu kormeerka ku tagay waxa uu warbixino ka dhageystay dadka ku ganacsada goobaha uu tagay kuna dhiirigelinayay inay kordhiyaan ganacsigooda oo leh qaybo kala duwan. halkan waa iska baarubax ee jidka Sodonka saacadu waa saqda dhexe ee xilliga Muqdisho si caadi ah ayuu uga socdaa ganacsigu. dhammaan goobihii ganacsi oo booqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu milkiilayaashooda weydiinayay inay la kulmaan waxyaabo khatar gelinaya ganacsigooda waxayna cadeeyeen inay ku faraxsan yihiin qaabka ay u shaqeeyaan ciidamada amniga wada shaqeyn wanaagsan ay kala dhaxayso taa oo suurtagelisay in xilligaani oo waqti dambe ay u furnaadaan meheradahooda ganacsi. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa sharaxaya ahmiyadda ama muhiimadda uu xambaarsanaa kormeerkan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. bismillahirrahmanirrahiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxa uu caaway kormeer ku soo maray qaybo kala duwan oo magaalada ka tirsan si uu u kurgalo xaaladda amni iyo midda nololeed ee shacabka magaalada ay ku sugan yihiin. wasaaruhu wuxuu tagay goobo ay dadku isugu yimaadaan ama dhalinyaradu isugu yimaadaan oo maqaayadaha ay ka mid yihiin Karmal iyo Pizza House iyo goobo kale oo magaalada ka mid ah. runtiina wasaaruhu wuxuu kula kulmay dad ka tirsan shacabka iyo dhalinyarada iyo haweenkii halkaas joogay si uu ugu dhiirigeliyo maalintooda halkaas ku qaadanayeen iyo inuu goobo ka tirsan ciidanka oo uu booqday ra'iisul wasaaruhuna wuxuu u kurgalayay amniga magaalada si la socotaan maamulka gobolka Banaadir maalmihii la soo dhaafay wuxuu waday kormeero iyo u kurgalid xaaladda nololeed iyo midda amni ee shacabka magaalada ku dhaqan. ra'iisul wasaaruhuna asagoo barnaamijkaas qayb ka ah caawa wuxuu u sameeyay kormeerkan waa kormeer joogto ah oo ra'iisul wasaaruhu uu kurgalayo xaaladda magaalada. kormeerkan xalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ahaa mid uu ku doonayay inuu ku xog ogaado xaaladda amniga nololeed ay ku sugan yihiin shacabka taasi oo ka caawinaysa in talooyinka shacabka lagu daro qorshaha horumarinta amniga iyo adeegyada bulshada ee xukuumadda ay ahmiyadda weyn siinayso. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.